السلام عليكم. waxaad joogtaa halkii saxda ahayd. Soo dhawow. magaxweyne hargeysa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha nugaal xaysiya meelaha juqraafiyeed ee burco waxay ku taallaa bartamaha somalilan gaar ahaan gobolka togdheer. waxa ay ku fadhidaa dhul sare oo buurbuura taasoo siinaysa aragtiyo qurux badan iyo cimilo ka duwan magaalooyinka kale ee xeebaha ah. habaydhabo kismaayo kulliya mirta gaarisa mulaxada jigjiga magaalada burco waxay ku taallaa dherer gaaraya ku dhowaad 1,037 mitir, ama haddaynu si kale una dhahno 3,400 fiit oo ka sarreeya heerka badda. dherarkan sare wuxuu sabab u yahay cimilo qabow oo habeenkii ah xitaa inta lagu jiro xilliyada kulaylaha. magaalada waxaa dhex mara toga dheer oo ah dooxa weyn oo roobka xilliga guga iyo dayrta biyuhu ku qulqulaan. togan wuxuu muhiim u yahay deegaanka maadaama uu biyo siiyo dhirta iyo daaqa. burco waxaa ku xeeran tuulooyin badan sida qoryaale, beer iyo tuulooyin aad u badan oo hareeraha magaalada ka xiga. magaalada sidoo kale waxay u dhowdahay xuduudda Itoobiya, taasoo kor u qaadaysa xiriirka ganacsiga ee la leenahay. cimilada magaalada burco waxay leedahay cimilo kulayl badan iyo mid qalalan oo afka qalaad haddaynu ku dhahno semi-aridka loo yaqaan, oo la mid ah tan lagu arko dhulka bannaan ee geeska Afrika. waxay leedahay xilli roobaadyo iyo xilli qalayl ah. xagaaga Juun ilaa Sebteembar heerkulku wuxuu gaaraa 30 digrii ilaa 34 digrii maalintii. jiilaalka Diseembar ilaa Febraayo heerkulku wuu dhacaa, wuxuuna noqon karaa 12 digrii ilaa 15 digrii habeenkii, maalintiina ilaa 25 digrii. waxaa roobka ugu badan da'a bisha Abriil ilaa Maaj xilliga guga, iyo bisha Sebteembar ilaa Oktoobar xilliga dayrta. celcelis ahaan roobka sanadlaha ah waa qiyaastii 200 ilaa 300 milimitir. xilliyada kale badankood roob kama da'o, waxaana la arkaa dabaylo iyo cirro saar. culimada adduunkiyo cilmi sayniska dabaylo qalalan ayaa ka dhaca bisha Juun ilaa Agoosto, kuwaasoo keena boor badan iyo heer kulul. guud ahaan huurku hawadu waa hooseeya, taasoo keenta in kuleylka uusan si daran u saameyn dadka. cadayn karaye ilan ciriya cadkii caynkiisa lana helo cadayn karaye ilan ciriya cadkii caynkiisa lana helo labadays calooshada caasha haddan ciidda kala gelin caasha cagahaysigee caasha burco waxa ay leedahay dhul sare, cimilo kala jaad ah oo xagaaga kulul tahay balse habeenkii qabow iyo roob yar. waxay leedahay goob muhiim ah oo isku xirta gobollada dalka iyo Itoobiya, taasoo ka dhigaysa meel juqraafi ahaan muhiim ah. cimiladeeda kala duwan ayaa u saamaxday inay tahay meel ku habboon xoolo dhaqashada, gaar ahaan daaqa xilliyada roobka. makuu dhacay warkaygiiu maka dheregta sheekada sidan kuugu kala dhigay erayadan ka soo dhuray jacaylkii idiyodhigay adiga dhabu hantiyay dhama waaxyahaygo mar haddaanay dhuuxiyo wadnaha dhiiga habaya laanta dhaqaaqayne inta nolosha ii dhiman dhinac kalimaday adiguna idhowro ayaani ila dhisxaashaga